ilaahay baa yidhi qofku hadduu ilaahay daacaddiisa ka jeesto dhabarka u jeediyo ilaahay garan waayo nolosha adduunyada intuu ku nool yahay qofkaasi waxa uu ku jirayaa markaa cidhiidhi ka bixi maayo weligii mar horena qisadaa waa sheegay niman tuuristi oo caddaana meel xeeba ayay marayeen iska dalxiis bay haayeen nin dhallinyaro ah oo markaa muslim oo xeebta ag jiifa bay arkeen doontii bay soo weeciyeen way u yimaadeen way kiciyeen maxaad meesha la jiiftaa wuxuu yidhi nin waxaan ahay beesheer waa kalluumayste khaydka xadhiggaa badda iigu jiro oo kalluunku marka malaygu markuu qabtana waan kacaa buu yidhi oo waan qabsadaa 2 xabadood haddaan shaqaysto gurigaan iskaga noqdaa buu yidhi ma 2 keliya ha 2 waa xabadna waan iibiyaa oo masaariiftaan ka dhiganaa aniga ubadkaygu midna ciyaalka noolkooda ayaan uga dhigaayo basaskan ayay u raacaan buu yidhi intaa markaan shaqaystana waan iska hoydaa buu yidhi way ka naxeen oo lacag bay iska ururiyeen baa la yidhi oo lacagtii bay siiyeen wuxuu yidhi lacagtan maxaan ka dhigaa wuxuu ku yidhi waxay ku yidhaahdeen shabag baad iibsanaysaa shabag baddaad ku tuuranaysaa halkaad maalintii 2 xaba keliya ka qabanaysay 20 baa laga yaabaa shabaga inay kuu soo gasho deedna magaaladaad kula noqon waad iibin lacagtii lacag ka badan baad samayn markaasuu yidhi kadibna waxaan in muddo ah sidaa ku shaqeeyo lacagta uruso markaasuu yidhi kadibna marka dambe doonni yar baad iibsanaysaa qoriyo oo badda gunteedaad ku dhaadhacaysaa badweyntaad tegaysaa halkaad 20 qabanaysay 100 baa laga yaabaa inaad soo qabato markaasuu yidhi kadibna waxaa laga magaalada caasimadda ayaad xaafadaha branch intood ku yeelato meel walba malaygaad ku buuxinoo cali kalluunla lagu odhan baa lagu yidhi markaasuu yidhi kadibna waddanka dhan baad u dhoofin doontaa kadibna waxaad la soo degi doontaa maraakiib warshaddii samaynaysay saaradiinka ee masnaca lahayd baad yaad soo iibsan doontaa deedna badweynta markabku xaggaana kalluunka baddu ka soo nuugi xagga dambena masnaci weeyaan uu shaqaynayaa adduunkao dhan baad u dhoofin doontaa markaasuu dee kadibna marka dambe nin waxaad noqonaysaa riisho milyondeera markaasuu dee kadibna aqal qasriyo weynoo villaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ku yidhahdeen markaasuu yidhi hadda marka hadday timaadeen hurdaad iga kixiseen buu yidhi ma hurdadaa un baan intaasoo tacaba aad ii marinaysaan buu yidhi hadda markaad ii imanayseen soo ma hurdin hurda haddaan haystaa haywaalina iska socda buu ku yidhi waxaan ka wadaa dadka maanta inaku hadafku qofka muslimka hadduu hadafkiisa haysto u fiirso dadka muslimiinta kamaalqabeenka cibaadaysanaya wallaahi cibaadadiisa uu ku raaxaysanaya ka faqiirka cibaadaysanaya faqrigiisa uu ku raaxaysanaya ka maaragtaane bugtaanka mid bugtaana baad arkaysaa ood buuqanaysaa oo lugiya gacan intay qallashay haddana ku leh alxamdu lilah waa nicmad buu ku leeyahy maxaa ninkani uu ilaahay ugu mahadinayaa baa layidhi waa iimaanka qalbigiisa ku jira ee macrifada ilaahay marka hadafka laynoo abuuray walaalayaal hadduu inaga lumo sidaa dadkaa kale maanta gaalada ee dalkan iyo caalamkaba aan arkayno siday u nool yihiin ayaa maaragtaan qofka bani aadamku cidhiidhi buu galaya cidhiidhi keliya maaha bal adduunyadiisuna way dayacan tahay aakhiradiisuna qofkaasi way dayacan tahay sidaa darteed hadafka ilaahay noo keena walaalayaal inaan ku adkaano weeyaan waa maxay hadafku waa cibaadada ilaahay cibaadaduna halkay ka bilaabmaysaa waa ilaahay macrifadiisa awal maa wajiba cala alinsaani waa macrifada ilaahay jala wacala hadba intaad ilaahay aad garato ayaad ilaahay raalli gelin hadba intaad ilaahay adigu aad raalli gelisid ayaa noloshaada adduunka ee taakhirana kuu hagaagi nolosheennu sidaaba iskugu xidhantahe waa inaad fahamtaan hadba qofku intuu ilaahay uu bartu ilaahay garto ayaa ilaahay daacaddiisu u dhib yaraanu ilaahay adeeci hadba intaad adigu ilaahay aad adeecdidna noloshaada adduunka ee taakhiraha kuu hagaagi